asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada dhammaan ardayda Soomaaliyeed. waxaa inoo soo socday cashiro taxane ah oo ku saabsan garaamarka. waxaynu ka soo hadalnay common nounska annagoo weliba ka bixinay layli ama exercise. fadlan haddii aadan daawan cashirkii hore dib u laabo oo soo daawo si aad oola qabsato midkan. qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa waxa loo yaqaano proper nouns. proper noun waa magac gaar loo leeyahay. wuxuu noqon karaa magac shakhsi ah, mid magaalo leedahay iyo wixii la mid ah. proper nouns are names for particular people, places, or things. They always begin with a capital letter ama capital letter. proper nounku ama magacyada khaaska loo adeegsado waxaa loo adeegsadaa dad gaar ah, goob gaar ah ama shay gaar ah. intooda badan waxay ka bilowdaan xarafka weyn oo ah ereyga xarafka u horeeyo in la weyneeyo. tusaale, halkani waxaa inoogu qoran Omar. Omar waa qof magicii, xarafka u horeeya waa u weyn yahay, sidaa darteed waxaynu odhanaynaa waa proper noun. Beethoven waa qof magicii, sidoo kale waxaan odhanaynaa waa proper noun. Lisa waa gabadha yar magaceeda, waxaynu odhanaynaa waa proper noun. ama haddii aan si kale kugu dhigo, magacyada caadiga ee aan adeegsano ee uu ka mid yahay magacaaga ayaa la odhan karaa waa proper noun. waxaa laga yaabaa inay isweydiiso magacayga dad kale ayaa ila adeegsado oo waxaa la helayaa boqolaal magacayga oo kale leh. haa, waa sax, laakiin taasi loo tixgelin maayo inuu yahay common noun oo magac la wada adeegsado ee waxaa loo tixgelinayaa magac gaar ah. sababtoo ah haddii ay isla socotaan 3 qof, 4 qof iyo wixii la mid ah, intaba lama wada yidhaahdo cali, oo cali marka loo yeero adiga ayaa soo jeesanaya. sidaa darteed ayaa loogu yeeraa proper noun ama magac gaar ah. liiskan waxaa inoogu hardhan magacyada gaarka ah sida Alibaba, Florence, Decker, Pauline. waxyaabahaas waa magacyo gaar ah oo haddaan dhanka kale kugu dhigo waa sida adiga oo yiri oo kale Garowe, Boosaaso, Muqdisho, Kismaayo. waxyaabahaas oo dhan waa proper noun oo waa magacyo gaar loo leeyahay. good, waxaan rajaynayaa inaad si fiican dhugtaada iyo amaahisay. sida aynu sheegnay, halkan waxaa inoogu qoran your own name and the names of your friend are proper noun too. waxaa lagu yidhi magacaaga iyo sidoo kale magacyada saaxiibada ama asxaabtaada waa magacyo gaar ah oo proper noun ayaa loo tixgelinaya. the names of country and the people are also proper nouns. magacyada dalal iyo dadkooda waxaynu odhanaynaa waa proper noun sida halkani ka muuqata America, Egyptian, American, Egyptian, Indian, Italian iyo wixii la mid ah waxaynu odhanaynaa waa proper noun. sida halkan kaaga muuqata qaybtani hoose waxaa loo kala guray dadkii iyo dalalkii. America marka aad tiraahdo waddanka Americans, dadkii ayaa noqonaya. Egypt, dadkii Egyptian ayay noqonayaan. India markuu dalku noqdo dadkii Indians ayay noqonayaan. Soomaaliya haddii aynu dhahno dadku waxay noqonayaan Somalian people, oo waxaa raacaysa ereyadaas gadaal ka raacay ee loo yaqaano
suffixka waa u tegi doonaa waxyaabahaas balse hadda aynu ka hadalno qodobka aynu taaganahay. The names of towns, cities, buildings, landmarks are proper nouns. Magacyada magaalooyin iyo dhismaha wixii la mid ah waxaynu u tixgelinaynaa iyaguna inay yihiin proper noun ama magac gaar ah. Hong Kong ayaa halkaas inoogu qoran. Xagga kale Egypt iyo waxyaabihii aasaarta ahaa ee lagu yaqaanay. Okay, sidaas la mid ah dhammaan waxyaabaha ku saabsan magaalooyinka, dalalka iyo dadka waxaa loo yaqaanaa proper nouns. Sidaas la mid ah maalmaha, bilaha iyo sanadaha iyana waxaanu oranaynaa waa proper nouns sida Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday ama Saturday. Waxyaabahaas oo dhan waa proper noun. Waxaan rajaynayaa inaad diiwaan gashan doonto oo ay liis u samaysan doonto adigoo ciwaanka ka dhigaya proper noun. Aad ayaa ku mahadsan tahay daawashadaada. Nagu soo biir adigoo mahadsan.